halkan u jeedin waa gurigii xal dibka ka dhacay waxaana ka muuqda aad u baahsan xaafadda mishinka oo kamid ah xaafadaha magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa xal saqdi dhexe baaro 4 saac habeenimo dab ka kacay guri kamid ah xaafadaasi wuxuu sababay dabkaasi dhaawac iyo burbur hantiyadeed gurigan oo ka koobnaa 4 qol ayaa gabi ahaanba burburay dabkan ayaa waxa uu ka bilowday koronto dadka ka agdhawaa ayaa u gurmaday gurigaasi dabka ka kacay waxa uu halis geliyay dabkaasi inuu ku sii faafo dhammaan xaafadda mishinka dadka ku dhaqan xaafadda mishinka iyo milkiilaha degnaa guriga dabka ka bilowday ayaa waxay iga warbixiyeen qaabka uu ku bilowday dabka shacabka reer Jowhar walaalahayna muslimiinta waxaan u sheegayaa diriska iyo dadweynaha ayaa nagu soo baxeen xalay dabka kacay diriskayga anigoo la yiraahdo Farxiye Maxamuud Siyaad Barre oo ku magac dheer Farxiye Shamuuq shacabka dhalinyarada noo soo baxeen wiilal badan waa ku dhaawacmeen ilaa hadda wax noo socdo ama ahaynta maamul oo noo yimid haba yaraatee ma jiraan annaga isgarabsanay dabkiina waa iska dilnay saasaa jirto dhalinyaro badan ku dhaawacmata xalay ilaa 4 xaafadood oo nooga yimideen عين عاس دورد مرح وند مرح وين ما خبطه هرجال بصوم مرح يجرا جرد يجرع وند ولا على وا دورد وند مرح وين ما خونت مرح وين هبرا تصيما waxaan dhahay deganaha guriga waxa oo maanta meesha ka dhacay waa qasaaro ilaa ay hadda qasaaradaasna cidna la qaybsatay oo shacab la qaybsaday ma cid hadda macna mas'uul oo nootimido macna markaas uu tiri waxay idin ku dhacday in tiri malaha alxamdulillah naf adiga kulli waa laga badbaaday laakiin qasaaro waxa ka dhacay naf oo macna oo qasaaro maal ka dhacay maayna inta kale hadda alxamdulillah lagu badbaaday laakiin wixii macna markaas aniga aan ku shaqaysanay oo shaqadii ay ahayd iyo hanti guri iyo wixii in macruuf ay lahayd intaba macna way ku been alxamdulillah laakiin wax walba ilaan ku naqana haddana kulli waxa codsanayna shacabka Jowhar in macna aan la qaybsado shalin waan la qaybsado haddana in la qaybsado rajayna dabku wuxuu ka kacay korontada wuxuu ka kacay saacada uu ka kacay saacada markuu kacay faranjeera guriga faranjeerka uu dabku u dhiibay ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa maamulka Hirshabelle horta shacabkan ayaga mas'uulka ah waxaana loo baahan yahay markii macna dhawaato ay dhacdo inay shacabka la qaybsadaan haddana maadaama ay la qaybsanayaan shacabka ay la qaybsanayaan oo shacabka maanta uu isbixi waxaan rajaynaa wax walba dhici doona inay shacabka la qaybsadaan insha Allah Yusni Maxamed Ahmed Bulsho TV magaalada Jowhar